kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waa sabti taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 14 May 2022 wararka ciyaaraha ayaan halka ku soo koobay doonaa kooxda kubadda cagta The Gunners Arsenal waxa ay markaa doonaysaa xidiga u ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester City Raheem Sterling kaas oo la ogsoon yahay inuu isaga dhaqaaqi doono garoonka ku ciyaarto kooxdiisa Etihad Stadium haddaba Raheem Sterling ma suurtoobi kartaa ay leeyihiin dadiyooga qaar ee ka falanqeeya ciyaaraha haddii uu dhaqaaqo Arsenal ma taala kubadiisa laakiin waxa markaasi ay halis kale ku tahay kooxda kubadda cagta Arsenal inuu Raheem Sterling uu doonayo 300,000 barweeg inuu qaato taasi suurtagal ma ah laakiin haddii uu heshiiskiisa hoos u dhigo waxa leeyahay waa suurtagal xidigan inuu dhaqaaqo dhanka Arsenal Arteta iyo Sterling waa isfahansan yihiin waxna markaasi iskala soo shaqeeyaan kooxda kubadda cagta Manchester City si walba ay noqoto Raheem Sterling waxa uu ogsoon yahay inuu fursad ka heli karin xagaagaha soo socda haddii uu ku sii nagaado kooxda kubadda cagta Manchester City Arsenalna kadib guuldaradii xanuunka badnayd ee ka soo gaartay Tottenham Hotspur waxa ay daydaynaysaa markan wajiga kale ka uu ku qotonta inay isbedelo horumar leh sameeyso kulamada yaraa ee haddaba hareeha iyo kooxda kubadda cagta uu hogaamiyo Mikel Arteta lagu wadaa in ay markaas isbedel wacan sameeyso 3 year ayaa lagu xasuuqay kooxdan oo markaas London derby kulan ahaa Tottenham oo iyadaba ay maalmihii markaasi wacna ay u muuqato inay u bilaabanayso ayaana si dardar leh ku dhaaftay inkastoo hal dhibic oo kaliya ay ku hayaan waxa leeyahay haddaba Arsenal Mikel Arteta ayaa u weecan doona in uu xagaaga soo markaasi keeno garoonka ay ku ciyaarto kooxda Arsenal xidigo markaasi samata bixin karaya xagaaga soo socda maadaama ay xaqiijinayaan oo soo bixida markaasi Champions League si kasta ay noqotana wala arki doonaa kulamo xiiso badan waa ay jiraan balse Ronaldo ninkii ahaana wallahi waxa la leeyahay Cristiano Ronaldo waxa ay u badan tahay inuu isaga hayaamo garoonka Old Trafford waxa leeyahay Manchester United Ronaldo inay fasaxdo aad bay halis ugu tahay United kana waxa laga warinayaa haddii Cristiano Ronaldo ana lagu qancin karin in uu sanad dambe ka ciyaaro Europa League ma suurtoobayso in lagu celiyo balse xidigan ayaa wuxuu la kulmay macalinkiisa hore Sir Alex Ferguson waxyaabo badan ayaa la isla meel dhigay sida ay markaasi qodobada qaar ay sheegayaan waxa la ogsoon yahay lagu qanciyeen xidigan uu iskaga joogo garoonkana si uu markaa kooxda xil ciyaareedka dambe Ten Hag markuu uu hogaaminayo uu guulo waaweyn la gaaro xidigan ilaa imika wax war laga maayo si kasta ay noqotaan horyaalada ciyaaraya haddii aan eegnana Premier League maanta waxa markaas ciyaari doona si kasta ay noqoto kulamadii ugu dambeeyay Manchester City iyo West Ham haddii aan eegnana 2-1 kulanka ugu dambeeyay Manchester City ayaa ku badisay sidoo kalena West Ham iyo Manchester City haddana 2-1 ay markaa ku kala adkaadeen isla West Ham Manchester City halal ay ku kala baxeen Manchester City West Ham 2-1 Manchester City ay ku adkaatay waxa leeyahay Manchester City haddii ay ka soo gudubto ama barbare la gasho waxay kaliya sugi doontaa kooxda kubadda cagta Liverpool oo iyadana markaa noqon doonta koox iyada rajadeedu ay wali dhigin maadaama iyo naftarkeedu kulankeedu aanan yareysan inkastoo maanta Liverpool ay ciyaari doonto kulanka tirsan FA Cup-ka finalkiisa laakiin Southampton ayaa markaa u harsano haddii ay la soo kulantay Southampton waxay noqon doontaa ka soo badasay Wolves oo Manchester City markaa loo hakiyo ay halkaasi markaa rajo ay ka yeelato si kasta ay noqoto kulanka adag ee Manchester City West Ham United waxa la leeyahay haddii Pep lagu dhigo wuxuu markaasi sheegi doonaaba inuu koobka hanto kaliya wuxuu bixi doonaa isagoo ciyaareedkan wax koob weyn uu saqaadin ciyaarta waxay soo dhici doontaa 10 saac waxaana markaasi ciyaartu ay ka dhici doontaa garoonka ay ku ciyaarto kooxda West Ham United Watford Leicester ayaa ciyaaraya 10 saac ay soo dhici doontaa ciyaartan iyadana waa iska kulan markaasi kamida Premier League Aston Villa Crystal Palace ay isqaban doonaan Leedsna Brighton and Albion ay qaban doontaa Wolves iyo waliba Norwich way isqaban doonaan Everton Brentford ay qaban doontaa waxa leeyahay marka kulamada Premier League waa intaasoo liigaha kulamo yaryar baa jira waxa ciyaari doona kooxaha Real iyo Cadiz oo 2 saac bar soo dhici doona Getafe Barcelona ayaa ciyaari doona 2 saac bar Atletico Sevilla oo isqaban doona Villarreal iyo Real Sociedad kulamada wata iyo waliba horyaalka ugu markaasi isaguna uu harsan yahay in aan wali lagu guuleysan lagu muransan yahay waa horyaalka Zaareeda dalka Talyaaniga kooxda Juventus haddii ay ahayd koox alaaba sixiriiraha ay 7 sano ugu dambeysay hananeysay koobkan waa lagu dhagan yahay sanadkan oo waxa ku tartamaya labada markaasi Milan ee ka dhisan cariga markaasi Italy
kulamo ayaa jira iyagana oo aad u xiiso badan markii la eego Bologna, Sassuolo, Napoli, Genoa. AC Milan waxay qaban doontaa Atalanta. kulanka haddii AC Milan ay soo badiso waxay cadaadis ku sii kordhin doontaa hadigeeda Inter oo iyadu markaasi hoggaanka ay kaga hayso. Inter 2 dhibcood ayaa markaasi laga sareeyayo. waxa weeye kulanka haddii ay maanta dhibic ay keensato kooxda kubadda cagta AC Milan waxay tagi doontaa 81 dhibic haddii ay markaa adkaatana 83 dhibic ay tagi doontaa. hal kulan oo qura ayaa markaa u harsanaan doona halka Inter 78 dhibic ay wadato. Inter kulankeedu kulan yar ma aha oo waxa markaasi Inter ay isqaban doonaan Cagliari. dabcan waa koox markaasi iyadana aad uga sii cararaysa inay heerka markaasi hoose u sii dhacdo ama kaalmaha sare ay sii daydeen. guud ahaanba markii aynu eegnona kulamada ugu xiisaha badan ee jira horyaalada waa kuwan sala arki doonaa. waxa ugu xiiso badan kooxda kubadda cagta Manchester City oo West Ham ay qaban doona iyo waliba AC Milan Inter oo laba dhinac kala ciyaari doona. horyaalada kale waa lagu kala tagay. Paris ayaa daftay horyaalkii markaasi Ligue 1 ka ahaa. horyaalkii markaa Bayern Munich la tagtay Bundesliga. horyaalka Premier League ayaa imika isu harsan iyo waliba Zareeda dalkaasi Talyaaniga. Isbayn kor hore waxaa la tagtay kooxda kubadda cagta Real Madrid oo iyadu kulamo markaasi iska biya ciyaareyso. si kasta ay noqotana waxaa la sugi doonaa ciyaarta Manchester City iyo waliba labada kulan kale ee u xiisaha badan ee Zareeda dalkaasi Italy ee AC Milan iyo waliba Inter oo laba dhinac ka kala ciyaari doona. guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaya